ده هيبو يسمر إن شاء الله والله بالله أنت أنا ليد أنا أقول إجماعها عيدها كضاوته أو عيدها عرقته وحن سلي بربرستاغ هذا كان كوب بربرستاغ واحد الدنيا دامتنا كوب بربرستاغ ما سلي وعنان كله ده أرنتاس كجناس كدرين كده كنا قلنا وكاد بجيريا كادين ماي لو ما بهنا تراهنو سوق بربوسر يعني ويقيقسي ويان والسولية ده روحي هاي إن الوحبرشة أداة كم السولية وتكيد جدته هل كنا وحقولي واجبك ما كده يعني تاسواتها حام ترى كريه عباتي هذا الكحوم ما ترى يموت هذا ولي يموت حام ما ترى يبي ويجي صوص عن السوي مننا وحكوا قدر ما حكى على قبنا يعني الشخص يوحنا أودان كودي بيه ما هالدولة هو سماه برتماير ككلمة بان ليه وببهني إن ترى هذا مشهر كي عن وحكة قدر يحط الله ما بحني waxbarashada hoose ee asaasiga ah ee la yiraahdo primary education ama waxbarashada akhriska iyo qoraalka waxa ka mas'uuliyad dawladaha hoose waa waajibaadkiisi waa shaqadiisi wuxuu yiri in xashiishka la ila xaraabeehay waxaan leeyahay maayar hooyooyinka tirin xashiishka la iga xaraabeehay lacag baa laga qaadaa iyadoo lacag laga qaadaa timid iyadoo xashiishka $5 bishii laga qaadaa timid iyagoo danyar kurinaya ila taaka dul qaadaabeehay waxa ma tahay mushaharkaaga lagama fadhiyin inay hesho foundation karin meeshu wax ku dhigan laha halka tiri proposal soo qoro xaq ugu ma lahayn hibiyo hooyooyinka halkan fadhiya iyo annagaba inaad tirado proposal soo qorta ee wixii aan lahayn baad haysaa xaq baa loo leeyahay foundation ka dhulkiisii inaad bixiso adiga ah oo qorto oo diyaariso mar haddaan inaan diini mina waxay ka dhigan tahay mar haddaad odaygii magaalada aan aho duqii magaalada ahay in magaaladii oo dhan idin soo sharaftay idin la joogtay ka dhiganta waxaanan idin sheegayaa qofku markuu salaadii subax tukaday qashin soo guray dar ilaahay u guray si dalkiisu nadiif u noqdo way dhacaysaa ducadiisu ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay inta yar maale haysataan alla idin barakeeyo aqoonta aad barateena ilaahay idinku anfaco oo xisaabtiina ku xidhataan sidaa sheegteena tuuga in khiyaameynay iskaga filaataan insha Allah ilaahay hadalku waxba tari maayo laakiin halka lagu dhigay baa qiimo badan diinteena islaamkuna meel bay ku dhigtay sharaf badan cidna aan la dhigin ummadda aad ka dhalateen ee Soomaaliyeedna meel cajiib ah ayay idin dhigeen waxay yiraahdaan dalkani waa dalkii hooyo de dalkii aababa waa la odhan lahaa dalkii aababa waa la odhan lahaa laakiin halkaa martabada waxaa la idiin dhigay qiimihiina cidna laydinlama simayn haddaad askariga dalkan difaacaya hadhiya habeen soo jeedana idinkaa dhalay dhakhtarka dadka daweynayana idinkaa dhalay macallinka waxbaraya idinkaa dhalay madaxweynaha dalka maamulaya idinkaa dhalay wasiirka idinkaa dhalay inta lama jirta la hadal haya abwaan leh ee magac leh ee fanaan leh ee sheekh leh idinkaa dhalay hooyadu qiimahaasay joogtaa laakiin waa laga yaabaa qiimaha naga mudantii inaanu nagaga soo kii noqon xagga waxqabadka inaanu nagaga soo kii noqon baa laga yaabaa laakiin waxaan u garifleenay hooyadu nolol wanaagsan ha heshaan islaam hooyadu nolol wanaagsan ha heshaan islaam wada hagaagsan ha heshaan islaam inta dawladda hoose waxaan isleeyahay haddaad meel fog kasoo shaqo tagi jirtay مثلا haddaad daabi ka iman jirtay subaxii ama sheekh nuur ka iman jirtay ama digaale ka iman jirtay ama sheekh cumar ka iman jirtay ama magaalo bixi aad ka iman jirtay baska kaa soo qaada hubi haq male maanta oo markuu halkaa kaa soo qaada IDB-ga ilaa uu suuqa ku keenayo oo dalaamiyaad soo martaa dadaalku waxa weeye hooyadeedu inay nasato waxa weeye saaka waxa laga yeeray intaasoo goobood baa laga yeeray midna ugama soo bixin xashishkayga laakiin hibo waan uga soo baxay waxaan isiri wax kala ma tari karayside dee maantay kuu baahatay maanta ag istaag
maalin baa imanaysa haddaad u baahatay inaad madax noqotana ayagu ku doortaan ay kugu filaadaan haddaad iska daysana maamada Soomaaliyeed ummadda gebigeeda baad wad maamo u noqotana way imanaysa waxaan sidaa u leeyahay hooyada Djibouti joogta iyo ta Jigjiga joogta iyo ta Muqdisho joogta iyo ta Gaarisa joogta ayaa dadaalkaaga ma jiranaysa marka ay soorununi halkan yar baad dadaal yar ka wadayaan kula yaraan waxa timi maxaan ku tari karayaa baa timi hadalku waxba ma tarayo moogta hadal weligii wad waxba ma tarayo hibay wiiga soo socon soo imanana waxa kuugu daran wax kala qabanaya anoo shakhsiya waxaan awoodaan ku dhiibaya maaha dawlad hoose maaha dawlad hoose anigoo shakhsiya tayada gaarka waxaan ka tari karayaan dadaalka ku darsanaya insha Allah ilaahay dawladda hoosaad iyada ma baraysidee fikirka iyo proposal ka la imanaysa ragga meesha ila joogana waa hordhigaya waxay dawladda hoosana adigoo na barayeen ilaa annaga inta naga noo qabanaysa oo shaqadeedii inta anigii wasaaradda waxbarashada noo qabanaysa iyada taa naga bariimaysa miduu ma walaal ku sheegaya qalbiga wanaagsan ilaahay baa bixiya dadkana dad xun maaha haddaad iska dadaasho maalin bay ku abaal marinayaan amba ku ilixila taqoon afka iga geliyo waxa soo wadaba adigana maalin bay ku abaal marinayaan samir oo adkayso waan garanayaa dareenkaaga waxa kicinayaan garanayaa waan soo maray waxaad naga filaysaa iyo waxaad haysaa kala weyn wax badan baad naga filaysaa dan madaxdiina hay dan dadkiina hay waxa naga soo ka noqonayaa yar marka dadkaas shucuurtu u bedelmaysaa hooyooyin oo idin kana mid u maalin ilaahay hibaha loo duceeyo in ilaahay siiyo nolosha ugu wanaagsan aamin u dhaha insha Allah ifka intii joogtana inay khayr iyo wanaag la kulanto day xaaji wanaagsan leedan Allah u baraka hadaan ayna kan rag ugu wanaagsan insha Allah ilaahay bismillah ta'ala ilaahay aakhirana ilaahay idinkii jannada hiba Allah geeyo idinka ilaahay istaan cid bay u baahantay ilaahay u baahantay cid ay u baahantay male hiboy samir insha Allah wallahi billahi intaan idhi anigu igama aha ciidaha ku daawato oo ciidaha aragto waxaan isleey barbar istaago hadalkana ku barbar istaag waxa la duuyo dhaantana ku barbar istaag baan isleey hadaan kamardi joogno intaas ma ka horolaa marka walaal ku ducaynaya waynu soo imanayna marna aniga iyo adiga soo imanayna marna dawladdaadii hoose ayaad waxaad uga baahantahay u sheeganaysaa ilaahay inteena kalena qoladan miidiyaha warkeeda inay qaadaan baa laga rabaa ay meel fog gaarsiiyaan hibo waayo waxa laga yaabaa qof wanaagsan oo waxtar ilaahay muslima inuu adduunyada meel kaga nool yahay kale horta maayirka kelmad baan leeyahay uma baahni inaad tiraahdo mushaharkayga aan wax kaga daraya halka loogama baahnay waxbarashada hoose ee aasaasiga ah ee la yiraahdo primary education ama waxbarashada akhriska iyo qoraalka waxa ka mas'uul dawladaha hoose waa waajibaadkiisii waa shaqadiisii wuxuu yiri in xashiishka la ila xaraabeehay waxaan leeyahay maayir hooyooyinka tirin xashiishka la iga xaraabeehay lacag baa laga qaadaa iyadoo lacag laga qaadaa timid iyadoo xashiishka $5 bishii laga qaadaa timid iyagoo danyar korinaya ina taag dul qaadaabe waxa maanta ay mushaharkaaga lagama fadhiinay inay hesho foundation kali meeshu wax ku dhigan laha halka tiri proposal soo qoro xaq uguma lahayn hibiyo hooyooyinka halkan fadhiya iyo annagaba inaad tirado proposal soo qorta ee wixii aan lahayn baad haysaa xaq baa loo leeyahay foundationka dhulkiisii inaad bixiso adiga oo qorto oo diyaariso waa canaan kulule arrintaas ka ganacsiga dareenkii dadka noqonaysa waa ka daba geynaya ka deyn maayo
لو ما باهنا تراهنو سوق بروبوسر يعني ويقيقسي ويان مسؤوليته waxay ahayd inaad wax barashadan adaa ka mas'uulay waajibkeeda gudato halkana waxa ku leeyahay waajibkaaga ma ku dayacna taas waa taa waxa kaloo isagana kelmad oranaya saaxiibkay oo aad igu qaliyay Yunis dawladii wuxuu inooga yimid uu matalay maanta dawladdu halka way soo cidlaysay waxaan jeclaa inuu noqdo wasiirka kaliya loo yimid hadduu yahay kii maanta shahaadooyinka bixin lahaa aad baan uga xumay inaan kelmadda ilaahdo ma yahay inuu nala joogaabe inuu waqtigiisa siyaabe idinka la idin shaqeynaya yaa shahaadooyinkeeda sidii nimankii madaxda ayalka yimid markay tageen yaa bixinaya anaa waajibkoodii maanta gudayno idinka tagimayna waa la dhameynayna idinka tagimayna dawladda waxaa looga baahnaa hibe iyo macallimiinta la shaqeynaysa inay beerhoolka miisaaniyadda qaranka ee idinka la idinka qaado cashuurta in halkaa loogu daro ee loogama baahnaa inuu la yidhaahdo jeebkaygaan laba macallin ka bixinaya looma baahna waa been waa ka ganacsi taas waa ka ganacsiga daraaga waxaa loo baahan yahay waxaynu wada lahayn baa halkan taale in halkaa miisaaniyadda qaranka wax loogu daro waxaan halkan fariin uga dirayaa ganacsatada dalka mid baanu sheegaya dahabshiil waxaan leeyahay khayr ku siiyo foundation-ka wax ku darso inaa Saciid waxaan leeyahay wax ku darso in Maxamediid waxaan leeyahay wax ku darso baxsane waxaan leeyahay wax ku darso maaweel waxaan leeyahay wax ku darso bangiyada dalka kalena waxaan leeyahay foundation-kan waxba u baahan yahay ee maanta waxa lagu darso haddii aad ima weydiinayna miidiyahan idin marinayna runtii arrintaasi waxa inaga keenay waxay ahayd يعني إن هالكن لو يمادو إن